السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أبين ونكسن جنة قليل. halkani waa Elliot Wave Adjust YouTube channel. Videogan waa weekly analyze oo aan isha ku mari doono lacagii week hore aan analyze gareynay iyo jihooyinkii ay aadeen sidoo kale tan weegan meelaha aan ka filayno noo eegi doono group cusub marka hore ku soo dhawaado bartaan ku leenahay YouTube-ka Elliot Wave Adjust website markaad joogtid waxyaabo badan ka heli kartaa oo kuwa iskugu jira free iyo kuwa oo demand ah dad u baahan tahay haddii aad tahay qof Elliot Wave ku cusub oo wax fikrada guud aan ka haysanin waxaan recommendation ahaan kuu siinayaa inaad dimaadid qaybtan resourceska kadibna aad ku dhufatid Elliot Wave theory meeshaan waxaad ka heli doontaa hordhaca guud oo wax badan ka bedeli doona fikradaada guud ee dhinaca waveska insha Allah qaybtan marka aad soo akhrisid oo wax badan ka soo fahamtid oo si fiican aad ugu wacyisid hordhac weyn ayaad sidaas ku haysataa oo waxyaabaha kaleeto aan sharaxayo oo kaleeto YouTube ku noqoto ama xiisad caadi oo live wax dhan way ku fududaadaan insha Allah bal haddaan soo laabto sidoo kale waxaa jiro qaybtan wax ku jira free articles kan soo dhignaa weekly analysis ka soo dhignaa trading tools ka dad u baahan tahay book value calculator ka iyo position charting risk calculator ka iyo profit calculator drawdown calculator combine calculator waxyaabaha dhan waxa ku xisaabi doonaan waa trading tool ku caawinayo waaye dad aqoonin qaabka loo isticmaalo xoogo dhib ku noqon doontaa balse waa inaad fahamsan tahay fikradu dan ka bixiyo book value-gan wuxuu ka caawinaa lacag kasta qiimaha lacag kasta taagan yahay ee marayso markii lagu bedelayo lacag heblaayo euro USD markii isku bedelayo oo kaleeto boqolka bibki inta kali doontaa internet ka gali doontaa 0.10 hadrano calculate waa $100 boqol bib euro USD da 0.10 galshid waa $100 ku sheegaa adoo sidoo kaleeto 0.01 dadaalid oo ku sheegaya the euro USD sida markay tahay haddaan soo qabanaa lacag kaleeto soo qabanaa kaleeto euro ausi waa isla boqolkiiba 0.01 ka ku dhufano $7 kii hore muxuu ahaa $10 kana waa $10 qiimaha macnaha lacagaha way kala duwan yihiin waa kala qiimo badan yihiin bib value waa inta ku ogaanaysa lacagta aad galaysid intaas oo bibada ka heshid wadkaasna ay ku gashid meeqa lacag ayaa helayaa dollar ahaan position charts-kan wuxuu ka caawinaa inaad ogaatid markii inta trade-kaaga riski maxaa gelinaysaa oo kale hadda boqol bibo wasalkaaga wada lacala koonkaaga waxaa kugu jirta $2,000 riski imisa gelinaysaa 1 oo kaleeto 1% meeqo ka yahay koonkaaga $20 waxaa ugalaysaa 0.02 lodkii wixii lama uu ku sheegaa ayno ardayda education spanner garanaya waxyaabahan oo qofka risk management-ga marka uu fahmo ay waxaan kala fahmi karaan haddaa u baahan tahay cashar risk management-ga intii maal free education-ka ku dhufo waxaad ka heli doontaa insha Allah cashiro oo free ah cashirka risk management-ga dad soo daawatid xogtaan kale inay ku fududaato oo aad fahantid macquul ay ku noqon doontaa insha Allah okay kuwana waa kuwa kala soo kala waa isticmaalayo marka intaas uu gudbo oo aan ku sii dheeraanin waxaa jira marka surface fara badan aan bixino oo registration-ka dad dimaadin waxaan bixinaa waxyaabahan kala duwan education guud waan bixinaa oo qofka one time payment waaye koorsada waves ka qaabka loogu targeteeyo ayaan barnaa qofka sidoo kaleeto boro iyo premium-ka waxaa ka helaysaa features oo dheeraad aqoontan kaliya inaad barato kuma filna aqoontan qaabka loo dabaqayo real market-ka inaad aragtid oo ku qasban tahay 1 hour chartkii 4 hour-kii daily weekly waxaas dhan wave counting inaad aragtid weekend technical videos-ka inaad daawatid waxyaabahaas dhan way ku anfacayaan premium-ka sidoo kale waxa uu leeyahay xogtaas kale pro oo dhan waxa ku jiro uu leeyahay sidoo kale waxa uu sii dheeryahay live trading room oo si toos ah trade loo qaadanayo sababta loo qaadanayo kuwan la qaadanayna sababta loo qaadanayo waxaas dhan lagu sharaxaa waana maalin kasta la soo galaa
waa isla brogii iyo premiumkii laakiin markaan discount ayaa ku jira qofkii 3 months ka iibsanayo oo kaleeto wuxuu helayaa maxaa la yidhaahdaa discount boqolkiiba 10 ah oo meesha $60 saddex bilood ku bixi lahaa $54 laga qaadaa marka waa midka popularka ee dadka badan ay iibsadaan. Perfect, that's ugu gudbo website-ka. waan kusoo laabto analyse-keena week hore waxaan analyse gareynay lacagaha crosseska iyo jihooyinka aan ka filaynay. Crosseska week horeeto waxaan ka filaynay haddaan ku bilaabo lacagta euro AUD qaabkii aan noqotay iyo sida aan u filaynay. waxaan ka filaynay euro AUD wax noocan aan ka filaynay. suuqaan dhaqaaqay baa soo dhaqaaqay correction kan anyway waxaan suugaynay in wax noocan oo kale uu noqdo oo dhaqaaq yar oo badnayn inuu ka harsan yahay rajaynayna kadib suuqan bullish uu sii aadi doono. Anyway masiinadii complete noqotay masiinadii intaan ku filnaatay kadib cycle-kiisa caadiga ay cusub ay suuqan bilaabay jihada waa bullish. weegan waxaan ka rajaynaynaa still bullish suuqa loo sii wado wax noocan oo kale soo nasto kadibna kor u sii aado insha Allah. euro AUD still jihada waa bullish as long as kooxdan ay taagan yihiin jihada waa bullish. anina siinoo sameyn karaa laakiin muhiimadda inay bullish taas oo ogaado intuu kooxdan 17 September ay taagan yihiin. sidoo kaleeto euro JBP sida noocan sideways iskaga jirtay downside in sideways ka weli ku sii tagtay aan rajaynaynaa noocan oo kale inay hoos ku imaado sidaan way noqon kartaa kadib way sii fulgalo kartaa. muhiimadda waxay tahay this cycle ma uusan dhamaanin rashankan ma uusan dhamaanin wax noocan ka rajaynaynaa insha Allah. noocan oo kale ayaan ka rajaynaynaa laakiin looga inay jabiso kama rajaynayno. Perfect waxa waay lacagtaas oo isla xayaasan tahay wax fursada ma lahan. lacagta xigta waa baan AUD week hore waxaan ka rajaynaynay noocan oo kale inay noo sameyso dhaqaaqa aan aragnay masiin noocan aan ka sugaynay oo yaraan iyo loo inay soo jabiso sidaan oo kale kadib ay baxdo masiinada sameysa dhicin waxa ku filnaatay only masiinada ku filnaatay perfect intaan la ku filnaatay kadib suuqa cycle-kiisa cusub ayuu bilaabay. weegan waxaan ka filaynaa inuu bullish loo sii wado dualeera inuu soo yarmasto kadibna korkiisa uu sii aado haddii istaraatiijiyada ku waafaqayso entry ku leedahay kan bullish suuqan waxaan ka filaynaa kor insha Allah as long as 12 September ay taagan yihiin. Perfect. JBP NCD same scenario weegan waxaan ka filaynay masiina noocan noo siiyo perfect masiinada complete isku noqotay kadibna suuqan bullish oo aaday. weegan waxaan ka filaynaa still bullish masiina yar kadib bullishkiisa noo sii wado dualeera as long as kooxda ay taagan yihiin crosseska waa bullish it is too risky inaad sell gareyso iska ilaali marka fursada beesha aad ka baaratay lacagahan crosseska euro JBP ma isku xayaasan tahay inay hoos u sii raacdo waxay hoos u sii daabtaa rajada kadibna bullish yaado. Perfect crossega dantas ugu gudbo focuska waxay noo saaran oo weegan focuska waxay noo saaran waxay ahayd lacagaha dollarka kuwa week hore ahaayeen haddana ma sii eegaynay dollarka haddaan tago dollarka weegan waxaan ka filaynaa aan ku bilaabo lacagta dollar ahead ama DXY waxaan ka filaynaa structure inta nooga muuqda oo correction aad u qurux badan iyagan waxaan ka filaynaa insha Allah in kor loo sii push gareeyo noocan oo kale kor loogu sii qaado ayaan rajaynaynaa insha Allah as long as kooxdan ay taagan yihiin kooxdan intii loogan taagan yihiin suuqa soo beer
حكم معقولة سيدا وياي سوقان إنه كسر داتو ولو كان سيجيبيه possible كي عمر جينا ميمدا أيا with direction أيوة كان كم معقولة fast next move محوننا next move this way أنا رجعنا سوقان bullish الاستراتيجية ده كفر وكان bullish يعني هذا أكشة كنا مثلا شرحها يقول لي direction مع signal مع صدى ده سنديد كدرس إن شاء الله دولار bullish ده يهاي محا لعيان كله دولار كسر جيدا جبي بيوز دي محاور جينا bearish محاور جينا bearish as long as تاجين كهذا long as كهذا تاجين bearish محاور جينا perfect it can بس إنه ليس تواحد صار مستوى تو هذه كرا كدب بصوم مثلا كرا كدب دقائق يسوق بلا بكرا مثلا إنه عشان السماء it's possible كم ده أورو جينا this way one this way direct كان dan urgenana inshallah ini menuju kusut juga. Oke. NZD USD zero kaleto. NZD USD bearish. Saya ente semeyo kita bisa bahwa nas daqaqa oo bilaabi kara it's possible laakiin maxaa urjeynayna anaga this way kan maahan this way profit loo gaasino jabiyo istiraatiijiyada ku waafaqday kan beerash awsi sidoo kaleeto aan urajeynaynaa ayadana bearish loo ina soo jabiso bearish aan urajeynaynaa haddaad doonan lacagahan insha allah isku dayayna buy garaysid waa khatar inaad buy garaysid meel xasaasiya maraya USD CAD jihada dollarku wada iyada duntaayadana waan u jeednaa masiinadan still ayada socota korna sii kushgaraya ayaan u rajeynaynaa insha allah oo haygaas la jabiyo waxayna xiga Euro USD waxaan ka filaynaa bearish suudaynaa buy garaysid risky waxaad samaysaa waxaan u rajeynaynaa insha allah bearish euro inay soo jebiso ama aqoon sidaan sameeyo kadib inta tagto kadib soo daadato intaas oo rajeynayno scenario koowaad ayaan u rajeynaynaa insha allah hadana ayaan rajeynaynaa oo bearish profit marwada ugu soo laabatay dollarka dhammaan waa soo wada maray dollarka wiigan awood u leeyahay USD CAD bullish aan rajeynaynaa JBP USD, NCD USD, AUD USD, Euro USD waxaas dhan bearish aan rajeynaynaa insha allah way daahi karaan muhiimadu waxay tahay only direction time-ka waxba nagama gelin insha allah waxaan jeclahay inaan intaas kusoo gabagabeeyo amaasantihiin waxaa inoo balanaa wiigan xiga dadka cusubtaa channelka fadlan inaad share garaysid isku day videogan si asxaab badan oo u baahan ay u gaaraan sidoo kale like inaad saartid si ay fariintu meel u gaarto amaasantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh